kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaasha iyo daawadayaasha laanta af Soomaaliga ee VOA maanta waxa noo suurta gashay inaan wareysi gaar ah kula yeelano magaalada Hargeysa musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro gudoomiye ku soo dhawow mudane laanta af Soomaaliga ee VOA sahara fiyo soo dhaweynaya iyo sahraba aanan muddo sarag saddexdiinii musharax mar kale hadana tartamaysaan muddada 7 sanadood bilaha yar ka dhiman yihiin ee madaxweyne Muuse xilka hayay idinkuna xisbi mucaarad aad ahaydeen waxyaabo badan baa wadanka ka dhacay kuwaasi oo maanta ay muuqato riiqdii in doorashadan ay saameyn weyn ku leedahay arrimaha qabyaalada kamid ah waxa la sheegay dadku inay aad u kala fogaadeen muddadaasi 7 sanadood ahayd maxaad u malaynaysaa in aad idinka qorsheysantay inaad ka qabataan maxaa soo malaynaysaa sababihii keenay بسم الله الرحمن الرحيم كل بدي حكومة كحيلان تهاي إن يدتك مدايسه أما شيء سؤال ويسوون واجبات كذا دستور جاوا كم تهاي وعسله هالك حكومة ضو واجب كم يجودين وعسله كلا فوقان شهادتك إن بعض بيصير واحد يدو. إذا كسبب ما كل يدهينه ما ملاين سنة طيب كل يدهينه معارض آد وغير فوقادي إن تهين هناك هراء معارض لماذا الصومالي لان لقيه قاني ما واحد مع المعارض فيه وخفيف صنع ومحمد كاهني موسى والكويل عليه يعني ذلك معارض كتيرين وانقرتان إن سومالي لان وحا إمك كتيرا ميلا كميدا أمني درو معلميه وجودن بي وحينو مقليني ديغانو إن داد اسكو ويرارين لبد ديغان كسو كلا جيدا dhinaca kale hadeen hore ugu sii socono gobolka Sool magaalada Lascaanood maanta waxa ka maqantay gacanta Somaliland maamulkeedu sideed u aragtaa adigu بسم الله الرحمن الرحيم هرتانو المواد كتشوجا لسعانو دي كارجيس تشوجا وهذا كلام موادين أو سمن أو حقوق سمن له ضياع ما كان على لسعانو لما تظن ما كان على الدنيا أنت بدل مركب حسلية هاي ضياع كان لسعانو لأنه إحنا قبلنا إلا جمال بكري لكن أنا سياسة دهان لسعانو ما تجعلت سمالات كميد معه أصلاً لها سياسات فرفران هو هذا الله والنبضة هو العلماء إن لو سوء عليه ولو سوء هذا الله حسيل لون الدرة كان عضي ضيار كوكين حسيل لون الدرة تاسوها كلفتي إن سبع اسمان إذا ما مواطنين وكارنتي دولد أي بروحين لهيد بروحين ويدي مركز يعني دولد الدفاع ميسو وحصل اسمه إذا من مدنية marka xuduud dheer baa jira halkaas oo ka bilaabman basalan balidigi la yaarigaw marka xuduudkaasi ma xasilaana maanta dad hooysan oo shacab ah oo labada dhinac jooga jira taas ara keentay maanta isku dhacay ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Qorlugud anagu qaran ahaan iyo qof ahaanba waxa naga go'an in aanu taageerayno دفاع قرنك يضدك يقرن مذا لكن ما والله وحن خريسين أن نبض ما دام حل الدور شل وشرينا وحنا لنا هاي دفاع قرنك نواجه دور شدين قال أنا نواجه السؤالها وجوب بدني يمكن سومالان آد كريسكوي ديني وحويان أفري سجاشن كيبا سومالان هو كديجس لجسمي حدنا واحد مودات كيم دي بسكوه بيجي ويجران ديجانا سمايستي عيدا ما هو بيسن أرنتها sidaad u aragtaa musharax ahaan hadii si xilka ku guuleysato maxaad sileeday wad ku xalin kartaa anagu hadii aan maamulka Somaliland xilkiisa waxaan naga go'an ciidanka samaysmay muwaadiniinta ee u samaysmay lafooda difaacaan ciidamada qaran ka dhigay siyaasadda arrimaha gudaha maxay idinka qorshaysan waxbarashada caafimaadka nabadgelyada arrimaha ugu badan ee dadka noloshooda taabta ee markay wax dooranayaanna ay ku go'aan qaataan arrimahaas kamida maxaad isleedahay qorshayaashiina way ugu waaweyn yihiin oo 6 bilood ama sanadka ama dhowrka sano ugu horeeya waad qabanaysaan horta barnaamijkiisa siyaasiga ah waxaan isleeyahay barnaamij laga shaqeynayay muddo 3 sano ka badan weeyay oo dhammaan qaybaha Soomaaliland ka qayb qaateen cid gaar ah ma sameeynin taraaf baa la sameeyay adana waa la sameeyay markii ugu dambeysay konton aqoon-yahan oo Soomaaliland naga toosan ka tirsan baan u saaray waasay barnaamijka siyaasiga ugu balaaran wadankii bulshada midkii wadi lahaa walaalay lahaa waxa uu horeeyay
وكاورني ودنكيسمو وسني فرحة الله ودنكيسمو وانا كوا هول أضج هول أضج بري هورنا ونسوي شيء ديني إما كان وانا كعلني برنامج كأسو مشاهدة ده لا بقولك ولا بقولي كنت ما نكرر قاعد دونا عافمات كودا وهذا اللي توهجتين دونا هوي إن الله سمعي وكتير برنامج كيجا حقوق قفكو أمركو لنتو أمد العوامو إنه حقوق شرعية حلا يا كتيرتا أريمها بالشدة runtii dee dal ballaaran baynu nahay Somaliland miisaaniyadda aynu dee u qoondaynay waxbarashada iyo caafimaadka waa miisaaniyad yar marka la eego percentka maadaama aynu miisaaniyaddeena inta badan waxay ku baxdaa 50% ammaanka marka inta kale adeegyada way wax yar waxaanu gaarsiin doonaa waxbarashada dawladda imika hoos bay u liidataa inta yadeeda kor loo qaado in iskuulada deegaanada aanay ka jirin si ilmuhu waxbarashada asaasiga u helo la gaarsiiyo dhammaan deegaanada Somaliland in macallimiin kor loo qaado tayadooda tababar la siiyo si iskuulada dawladdu oo maanta ka hooseeya kuwa private-ka la soo gaarsiiyo ama laga sarreysiiyo insha Allah so tirada wasaaraduhu aad bay u badan yihiin baa la yiraahdaa Somaliland marka maxaa adiga kaaga qorshaysan xukuumadda dhisayso haddii aad ku guuleysato xilka madaxtinimo sawirka aad naga siin kartaa maxay tahay dadku sii eegan karaan biwa maamulka iyo inay jirto daafurnaan arrinta musuqmaasuqa iyo daafurnaanta siyaasadda xisbiga waxa weeye zero tolerance ama inaan la aqbalin in hantida ummadda ay si khaldan u baxdo lana ilaaliyo lana dabagalo la kordhiyo hay'adaha dabagelaya ilaalinta hantida qaranka arrintaa haddii dee la helo in miisaaniyadda ummadda loo ilaaliyo waxaa isleeyahay adeegga waxbarashadana wuu kordhi karaa ka caafimaadkana wuu kordhi karaa nidaamka dimuqraadiyadeed ragaadka noqday sida dad badan ay aaminsan yihiin iyo nidaamka qabiliga ah ee kor u soo kacay maxaad ku sababeynaysaa maxaad si kaaga qorshaysan dee waa laga yaabaa marka la eego axsaabteenu koritaankoodu uu yar yahay waxaa laga yaabaa de xisbiyada qaarkood ninkii bilaabay weli guddoomiye ka ah marka xisbiyadii dee la dhiirigeliyo oo dhalinyaradu door weyn ku yeelato anigu xisbigan wadaniyan anigu aasaasay hal teeran baan guddoomiyaha wareeji waxaan qabaa xisbiyadu in la korin karo awooduna ay qoriisu dhiig noqon karto dadkuna kusoo dhiiran karaan ama si aan cid gaara loo odhan reer hebel baale xisbiga waxaa isleeyahay dadku maanta way koreen xukuumaddu runtii jirta waxaa isleeyahay qaybinta bulshada qayb bay ka tahay laakiin dadku haddana taasi waxaa isleeyahay faa'iiday keentay oo dhibaatay keentay marka dadku way baraarugsan yihiin maanta waxaa isleeyahay dadku waan soo maray anigu qiimaynteeda shakhsiga ah ama sax ha noqoto ama khalad ha noqoto laakiin waxaa isleeyahay dadku maanta iyagoo reera ka soo jeeda haddana dhammaantood intooda badani waxay doonayaan isbeddel waa gartay isbeddelkaasi markaa dadka qaar waxay leeyihiin isbeddel maahe waa isku beddel oo dadka ku garab taagan ama siyaasiyiinta ha noqoto kuwa isbahaysiga noqotaan ama ha noqoto siyaasiyiin xisbigaaga ka mida dhammaantood dadka reer Somaliland waxay leeyihiin qaarkood waa rag xilal hore soo qabtay waxqabad hore oo fiican oo lagu xasuusan kara aan ka tagin hadday soo noqdaana iyagunba markaa kuraasta iyo xilalkii u soo noqonaya isbeddel weyn oo dhacaya ma jiro dadka fikradda aaminsan maxaad kaga jawaabaysaa kaga jawaabaya kolba dee xukunka markaa yimaada ayay ku xidhan tahay in wax la bedelo waa iska dee dadku dawladdan way ka soo wada shaqeeyeen waan gartay mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaynu gelaynaa dhinaca arrimaha dibadda Somaliland waxaa jira laga soo bilaabo xilligii aad ahayd guddoomiyaha golaha wakiilada 2012 waxaa bilowday wadahadal u dhexeeya Somaliland iyo Soomaaliya ilaa hadda ma jiro midho rasmi ah oo laga dhaliyay laakiin marna way joogsadaan marna way soo noqdaan
adigu sideed u aragtaa wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya say u socdeen maxaad ka bedeli lahaydeen sidoodiisa ma ku sii wadaysaan دلوقتي ما بيسعون المكان مزاح وكمل عبد هذا الله سدل كإنجليز كان يسوي سارة إنجليز كان إنيشيتيف كلها ومدحوين السيلايو لصاحب لي أساسا كمل عمي عسلا بلويس أدب فينا الدنيا دتكي هو بهم سنة ما كسر غير قلي فورست سكرتيري مريك كويمي رئيس وزراء إنجليز كده شوقي مسؤولين أنت بعضهم في مدينة يوروب بدأ كودوي مادين أنا مركز الحكومة كمان مدهين لكن وكيلا يسموه بالعضو مدحوين ولا مركب بلا بيجي برلمان كوجيمي برلمان كنا كوف صحي مدحوينها أنا أقول هذا الكلام الصومالي اللي قاس وأي واحد كذا شروع حديد يسي ولا هذا الكلام الصومالي وقضب دستور كشر حير ويا ليس Soomaaliland حير Soomaaliland يعني وان قرصة الحين هو الصدين قضب كأمين لو سمعيه وأنا لو سمعيه عد شيء سيدي بتحقيني وان قرصة دنيا ذلك عددين يسمى هاي الاعتراف إنه حريه هنا ولا هذا الشيء هسه شيء مليه إنه دون اللي كمان لعب ودنا بدنا والسعودية إلا أنت دي سيرانية ومدحوينها موصلنا لو شهر أيود بيسي ديسمبر والله كم يصدق حيا لعطنكي جبوتي وكيتي لكن ده واحد نتيجة كصباح مشرين وهتلاقي هاي إنه واحد دون الاعتراف ما ينام دورا إنه وضح الله لكن دون واحد حد وضح الله مركز ده هدي دنت Soomaaliland كل شفتوا إلا وضح الله والله سي وضع نعم ma jira laakiin qorshe cad oo idinka yaala talaabooyinka qaadaysaan marka ugu horeysa ciidad xiriirkiina ka bilaabaysaan hadii la wada hadlayo qodobada idin geedka go'aanka ah maxay yihiin ee aan laga noqon karin kuwa ilaa la taabto wuxuu hadalku siyaabo badan baa loo bilaabaa xagga sare marnaba laga bilaabaa oo dee madaxweynayaasha halkaas inuu ka bilowday laakiin natiijo kama soo bixin marka qaarkoodna hoos baa laga bilaabaa markaad hoos leedahay halkeeda farsamo yaqaana صح baa laga bilaabaa oo dee aqoonyahana oo researchera oo maxaa taariikhdii hore wada hadalladii hore maxaa ka xumaaday halkee waxa ka xumaadeen maxay la socon waayeen maxaa ka khaldanaa yaa marka dee weli marka cidaan la hadalay iyo cidaan dee anagu imika la hadlaynaa ma jirtee haddii aanu meesha nimaadno wixii hore yaalayna waynu eegaynaa si wanaagsan maxaa lagu wada hadlay xitaa anigu ma ogi detailskii heshiisyadii hore ma ogi markaa dee xafiiska nimaadno waxaanu ogaano ayaanu ka hadli karnaa arrintaas imanka muusin baa la weydiinayaa maxaa jeeray isagaa dee xafiiskii fadhiya hadda waan garta dad badan baa isku kiintiriya adiga iyo madaxda Soomaaliya ma jira xiriir idinka dhaxeeyo oo dadka reer Soomaaliland u sheegi kartaa maadaama warar badan oo la isla dhex maraa jiraan oo dhinacayda ku xagliyaan dadka idinka soo horjeeda ma aniga waxa xiriir gaar ah naga dhaxeeya Soomaaliya ma jiro waxaas leeyahay Muuse baa laba jeer farmaajo ku casuumay Hargeysa dirqa lagaga reebay Hargeysa yimaado waxaas leeyahay hadii cid Soomaaliya xiriir la lahayd xukuumadii kulmiye la weydiinay oo Muuse ugu dambeeyay waan garta safarada baxdo maxaad u malaynaysaa inay dacaayaduhu ugu bataan ee loo yiraahdo wuxuu la kulmay madax Soomaaliya lacag baa lagu fangareynaya xisbigiisa eedahaasi ilaa doorashadii hore soo noqnoqonay maxaase idinka uu la idinku tiriyaa oo xisbiga kale ee mucaaradka xataa aan sidaas loogu eedaynin saaxiibkay Muuse kaarkaas oo kaliya haysta markaas leeyahay laakiin waa filim la daawaday بريو هو قال 17 لكن فيلم كاس وفيلم للدعوة شغالين. وانقرت. سيدات واركتاي imka xiriirka Soomaaliland iyo wadamada caalamka geeska Afrika hadaynu ka bilowno wadamada dariska la xuduudaha wadaagtaan iyo ilaa dunida inteeda kale. waxa leeyahay de xiriirada qaarkood hoos bay u dhacay. Djibouti baa kamid ah. Ethiopia xiriirkeedu wanaagsan wadamada East Africa waxa leeyahay berigii hore ama sidaan xilligii udub ugu fiicnaa wadamo badan oo dunida kamid ah xilligii udub ugu fiicnaa wadanka South Africa la yiraahdo
xiriir aad u wanaagsan baynu lahaan jirnay xilliyadii udub ay xukunka haysay gaanaa ka mid ahayd wadamo badan oo dee ayaa jiray oo muhiima marka waxaan is leeyahay wadamada qaarkood ee gobolka ku yaala muhiim bay inoo yihiin mar kasta oo ugu horeyso dalka Ethiopia dalka Kenya dalka Ingiriiska dalka Mareykanka iyo dalka kale waaweyn ee Somaliland dee qadiyadeeda lagaga ololeyn karo wadamadaas muhiim bay inoo yihiin laakiin dalka Ingiriiska berigii aan gudoomiye baarlamaanka ahaa waxaa jiray kooxaad u ballaaran oo konton ka badan mudane oo labada aqalba ahaa oo Somaliland aad u taageeri jiray hadda ma jiraan berigaa anigu speakerka ahaa waxaan codsaday inaan qolada Commonwealth-ka in baarlamaanka Somaliland xubin ka noqdo laakiin xubinna lagama dhigin laakiin observer baan wixii lahayn goobjoogaan nahay xilligaas marka waxaa sida xiriiradaas oo dhammi dee hadda ma jiraan EU-da xiriir ballaaran baa inaga dhexeeyay Brussels baarlamaanka Yurub oo baarlamaanka Somaliland ama waxa la marti qaado Jarmalka xiriir badan baa inaga dhexeeyay xilligaas markaas waxaa soo dhammi imaka maanta ma jiraan san ka warhayno warbaahin ahaan waxaa jira dhowr jeer oo baarlamaanada wadamada waaweyn qadiyada Somaliland la keenay sida Mareykanka iyo Ingiriiska oo kale ama wadanka UK kuwaasi ma waxaad leedahay waxba kama jiraan waxba kama jiraan wixii la qabtay dee waa taageerayna ee wanaagsanaa waan gartaa laakiin hadda iyadoo taasi jirto waxaan isleeyahay markaan barbar dhigo 2010 iyo maanta adoo tobankii wixii ka horreeyay uu ka fiicnaa xiriirka baarlamaanka Ingiriisku inala lahaa waxaa inta badan dadka ku taageeraa sheegaan inaad adigu arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda ku fiican tahay ma jiraan xiriidho aad og tahay oo haddaad xilka qabato aad Somaliland uga faa'iideyn karto ama dawlado ama shakhsiyaad muhiima oo markaa aad oran karto waxba idin kala qaban karaan siyaasadda arrimaha dibadda xafiiska timaado dee isbedbedel horta dadku kuwii berigaa qaadnay waxa laga yaabaa hadda joogin laakiin mar walba dee waxay ku xiran tahay iminka dee safiirada Somaliland qaabilsan qaar bay naga tegay kuwa naga tegay xiriirkoodii dawli waynu haynaa kuwa joogan waynu haynaa waxaana ku xiran tahay xiriirka dadka matalaya ninka matalan Ingiriiska matalaya ee Somaliland qaabilsan fikirku inaga bixiyo way ku xiran tahay wax badan marka hadduu yiraahdo meesha meel la macaamili karayo maaha khasaare ay soo gaaraya laakiin waxa leeyahay haddii kuwa la wanaajiyay inala jooga kuwa kale uu gaari kareen dhinaca kale marka la eegana waddanka maanta 10 urur baa tartamaya saddex xisbi iyo 7 urur inta badan isbahaysi weeyaan oo isbahaysi bedel doona weeyaan dhammaan inta badan ururada oo yaraan afar ama shan dhinacina jiraan markaas sidee suurtagal ku noqonaysaa hadhoodii xisbigaagu soo bixi waayo xisbiyada ama ururada aad istaageereysaan ay soo baxaan iyo haddii labadiina dhinacba soo baxaan oo xisbigaaguna uu ururkaaga xisbigan wadanina mar kale uu soo baxo inuu noqdo xisbi qaran saaxiibadaada bahwadaagta siyaasadda noqoteen isbahaysiguna ay soo baxaan hanaanka loo wada shaqeynayo mid wax nooga sheegi kartaa iyo faa'iidada ay leedahay doorashada kadib imika doorashada waa inaad codkii wadaagtaan oo dadkii iyaga taageersanaana adiga ku codeeyaan laakiin doorashada kadib maxay tahay filashada dadweynuhu horta isbahaysigu dunida oo dhan ka jira oo coalition afingiriiska wadaag dalka Kenya aad ugu badan yihiin inta badan xisbi qowlka Kenya ma tartamee kooxda xisbiyaha oo isoo urursatay ayaa doorashada wadaaga marka inaga waa xisleeyay isbahaysigan waa markii ugu horeysay siyaasadda Somaliland oo la isbahaysto waxaana iska bahaystay Muuse marka waa xisleeyay heshiisyaan galay heshiisyaduna ma yahay kuwa qarsoodiya waxay kuwa shacbiga loo soo bandhigay oo meel babilka laga akhriyay
waanu kala madax bannaannahay tusaale dee kaah iyo wadani qodobka ugu horeeya waxa weeye inay kala madax bannaan yihiin oo ay tartamayaan doorashadana kala calaf qaadayaan laakiin dhinacyo kale aan haddana iska kaashanaynay oo ka mid ah inay iyagu maadaama aanay madaxweyne u tartamaynin ay codka labaad siiyaan musharaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani waxyaabaha aan isleenahay de way wadaagi kartaan xukuumadda waxaan u ballan qaadnay inaan wax ka siino ururaad ii sheegtay inay idinku soo biireen oo heshiis wada gasheen sidaan warbaahin ahaanba ognahay qaar badan oo ka mid ah markii ururada la sameynayay xisbigiina iyo xisbiga kale mucaaradkii aad baad uga soo horjeedeen in ururada la furo oo waxa doonaysa saddexdiina xisbi oo kaliya in doorashada gashaan kadib doorashada madaxweynaha ururada la furo marka ururadii aad ka soo horjeedeen diideen inay xataa madaxweynenimadeeda kula tartamaan sidee imika suurtagal idinku noqotay inaad idinkeeda ku soo biiraan oo markaa istaageersataan horta anaga ururada la furo kama nala soo jeedin ururadu waxay ahayd doorashada madaxtooyada xilli bay lahayd 2022 inay dhacdo markaa madaxweynaha ay soo gaarsiiyay doorashadii ururada iyo tii madaxtooyada dastuurkuna wuxuu leeyahay madaxweynaha waraaq soo qoray laftigiisu laga yaabo reference-kana dooni karto doorashada dastuuriga oo waraaq qoran oo dekreeto madaxweynuhu soo qoray baarlamaankii hore marbay soo qoreen markii ka tegayeen doorashada ururada hala soo horeysay madaxweynuhu uu jawaab wuxuu ku yiri doorashada madaxtooyada waa dastuuri doorashada xeerku sheegaya dastuurigana dastuuriga la horeysiinaya marka uu diiday xilliga mar dambe wax ku soo kacay madaxweynuhu markaas uu tawrada la soo horeysiinaya waxa kale isku baahan waxa la doorashada madaxtooyada soo horeynaysa ta kalena xilligeeda hal la qabto de marka labadii doorasho tii xilligii la qaban lahaa madaxtooyadana way dhacday anigu kama aan soo horjeedin xukunka soo baxana diyaar baan u ahay inaan aqbalo hadii taa la xukumi lahaa diyaar baan u ahay laakiin de waxa la xukumay in doorashada madaxtooyadu soo horeyso ama ay isku mar qabtaan marka imika xalkii ugu dambeeyay wuxuu noqday in labadii doorasho la isku sidko waxaas leeyahay doorashada ururadana madaxweynuhu wuxuu ka hortaagnaa uun doorashada madaxtooyada doorashada ururadana inaan rabin baan filayaan madaxweynuhu marka doorashadii ururada maadaama dee la yidhi xisbiyadii qura u tartamaya taas waxay keentay in dowladii aanu maanta qaar ka intooda badan aan xulafo noqono adigu madaxweynaha hadii aad noqoto ma laga yaabaa inaad muddadeeda xilka markuu dhamaado muddo xileedkaagu aad doorasho qabato arrintaas sama ku qorsheysantay si dhaqan kan loo soo afjaro madaxweynuhu 7 sano iyo ka badan la iska sii joogay xafiiska shacbigu hay dhigeysto Soomaaliland muddo kordhinta baa dhici doonta ma jirto hadii aan xukunka imaado tayadu kordhi mayso muddo kordhin kale ma kartaa ma jirto waan gartay sida dastuurka ku qoran ma xeer ayaan ku dhaqmi doonaa hadii la yiraahdo waan gartay ugu dambeyntii maxaad ka codsanaysaa dadka Soomaaliland isku diiwaan galiyeen cod bixinta ay ka qayb galaan xaq u leh inay markaa codeeyaan kala dooranaya 3 musharax oo madaxweynenimo u taagan iyo 3doodii madaxweyne ku xigeen iyo ururadii iyo xisbiyadii iyaguna marka la isku daro 10 noqonaya doorashada inagu soo fool kale oo ahtii ugu horeysay nooceeda ah maxaad ka codsanaysaa dadweynaha horta anigu shakhsiyan aniga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi erhana layu naanayso waxaan shacbiga Soomaaliland ka codsanayaa dhamaantii inaan ahay musharax madaxweyne oo Soomaaliland musharaxnimadeeda u taagan أنا كعصتني لما عدكود وهكذا كدريا إن تغييران استبدل كهذه الله يلا هذه الضمة هتسنتهاي مدني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو مشرحة حسب وطني مدحوين لماذا أترتمية سأن ورئيس جاسي جاركا ونوصيه أدبن وقت جاك هذا مهد علينا قدوم. سهلة.